بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. قيبتنا تضباط maanta waxaan kaga hadlaynaa run ahaan waxyaalo dhib badan ayaa iska jira. waxaan maanta aan kaga hadlaynaa qaybta toddobaad, ducooyinka faraha badan iyo habaarka faraha badan oo masaajideena in badan oo kamid ah aad iyo aad uga socota bishan. munaasabadaas run ahaan waxaa igu dhaliyay waxyaalo fara badan oo kasoo arkay magaalooyin aan tegay oo fara badan. tii ugu dambeysay waxaan joogay magaalada Nairobi, xaafad aad iyo aad u camiran oo dadka reer Kenya ay ku wada nool yihiin ayaan ku tukaday jumcadii ugu dambeysay. run ahaan markaan sii galayay masjidka waxaan aad ugu farxay dadka ku tukanaya oo dad ay ka muuqato ladnaan iyo sharaf oo baabuur aad iyo aad u fara badan oo modelkii ugu dambeeyay uu ka mid yahay oo dalal badan lagu soo kala sameeyay ayaa meel laga dhiga la'aa. markaas aad loo kala hagaayay. masjidku labada dabaqba wuu buuxay, si xoog badan ayaa run ahaan dadku ay u faraxsanaayeen. jumcadii baan dhageystay, khudba aad u fiican ayay ahayd oo ramadaanka iyo fadligiisa iyo salaatuleelka iyo soonka ayaa aad looga hadlay. imaamku markuu ducaynaya marka weeye sheekadeena maanta. imaamka keliyana mehe waa kumaakum imaam oo sidaas oo kale u ducaynaya oo aan isleeyahay mararka qaarkood waxay u ducaynayaanna ma oga runtiisa, waxay habaarina runteeda ma oga aan isleeyahay. sababtu waxaa weeye islaamka marka dib loogu laabto diinu raxma weeye, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. nabi maxamed sidaasaa loo soo diray calayhi salaatu wasalaam inuu dadka ka koriyo, uu ka nabadgeliyo cadaabka aakharo iyo ka adduunyo, inuu dadka ka bixiyo isdhibka iyo is-adoonsiga, inuu ka bixiyo in cadaala uu u sameeyo. sidaasaa loo soo bixiyey. imaamkaasoo kale oo dabcan kumaanku imaam umuu ka mid yahay, hadda isagu gaar kuma aha, wuxuu habaarayay wax alla wixii aan muslim ahayn ayuu habaarayay. aad buu u daalanaa, wuxuu la haraya ma lahayn. hadalladiisa waxaa ka mid a ilaahayoo waxaad halaagtaa yahuudda iyo nasaarada iyo kaafiriinta, oo marka la soo ururiya macnaheedu uu yahay ilaahayoo wixii anigu waxaan rumaysanahay aan rumaysnayn, ilaahayow nafta ka qaad oo halaag. wuxuu ku sii darayay ilaahayow haweenkoodana gacanta noo soo geli, caruurtoodana agoommo ka dhig ayuu ku sii darayay. duca marka aad iyo aad u culus ayay ahayd. run ahaan markuu sidaa lahaa anu markasta waxaan hoosta ka lahaa ilaahayow ha ka aqbalin. waxaa igu soo dhacayay imise ruux oo isaga la nool oo jiiraankiisa oo dariskiisa ayaa joogta ayaan islahaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la eryanayay oo dhiigu ka daadanayay oo magaalada Taa'if ay reer bani Saqiif tumayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam, oo malagii jibaasha uu yimid uu yidhi labadan buurood baan ku dabooliya ii fasax. nabigu wuxuu yidhi waa la ogyahay, wuxuu yidhi maya buuri, ilaahay waxaan ka rajaynayaa buuri inay soo islaamaan oo ilaahay dhabarkooda uu ka soo saaro caruur ilaahay iyo nabiga rumaysan. markaasuu nabigu intuu aad u duceeyey ayuu yidhi allaahuma hdi qawmii fa innahum laa yaclamuun. ilaahayow dadkan wuxuu yidhi jahli baa hayee, ilaahu soo hanuuni ayuu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxaa marka yaab leh meel islaamka nabigu dad beri ah oon dagaal kula jirin oo kolkaa la isdilaynin uu ku habaarayna ma jiro. maxaa jira waxa loo soo diray ee loo jooga inay dadka diinta loo yeedho. waxaan fiirinayaa inta baabuur meeshaa taalla ruux muslimihi ma soo samaynin, inta telefoon lagu hadlaayana ruux muslimihi ma soo samaynin. sheekhaana wacdinaya makarafoonku haystana waxaan hubaa inaan dal muslima lagu soo samaynin. badanaa wuxuu ka yimaadaa sharikaad dad kale ay leeyihiin baa soo sameeya, iyadoo oo la hubo waayaha qaarkood sanaacada inaan inagu samayn jirnay ayaan sanaacada iyo diinteennana dadka gaadhsiin jirnay. warshadaheenna dhulkeenna lagu sameeyaan aan caalamka u dhoofin jirnay, markaasay dadku diinta inaga aqbali jireen. saa daraaddeed waxaan isweydiinayaa sababta habaarka keentay muxuu yahay.
waxaan isleeyahay waxaa keenay fahmi xumada diinta aanu qabno qayb ka mida ayaa keentay kolka dadka la habaarayo waxa loo jeeda lama garanayo haddii ninka miskiinka maanta inta ilaahay ka aqbalo maba laga aqbalaaye xoolaha muslimiintu aysan lahayn gacanta loo soo geliyo ma maamuli karo haddii loo soo geliyo dumarka gaalada uu leeyahay ilaahay oo addoon nooga soo dhiray gacanta loo geliyana ma maamuli karo kuwiisii buu maamuli leeyahayoo farsamo xumo wakaan iswalaynayno oon midyaha iyo madaafiicda isku laynayna dhammaanteen innagii oon ruux naxariisan uun lahayn hadduu jiran ay in yar yihiin waxaa marka la rabaa in aimada masaajida jooga markay hadlayaan ay ogaadaan in dalkan lagu wada nool yahay dalalka caalamka oo dhanna waa lagu nool yahay maanta waxaa lagu nool yahay malaayiin muslimiina ayaa waxay ku nool yihiin Orobiya Amerika Afrikana inagoo muslim iyo masiixi iyo kuwa aan diinba rumaysnayn oo kale ayaa lagu wada nool yahay intuna way isu wada baahan yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam kaliya wuxuu habaaray dadka aan muslimka ahayn markii warmaha iyo seefaha laysu haysto oo labadan ciidan sabab kasta ha keenta waxa laysu dilaayo ciidan wuu isdilaa oo laysku hor yimaado markaas wuxuu leeyahay ilaahay oo kuwa naga qabo oo noo gargaar kuwa ka soo horjeedana saa'un bay leeyihiin waa ciidan isdilaaya markaas oo kale ruuxii hubbaaba laysu haystaa wax laysula hadhaaya ma jiro laakiin dad shacabana lama dili jirin ruux aan dagaal ku jiran lama dili jirin mana la habaari jirin waxaa marka yaab leh haddii la inoo soo diray islaamka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyadii ka horreysana ummadda loo soo diray inay naar ka nabadgeliso maxaad adigu u rabtaa inay gaalnimo ku dhintaan oo naar u gelinaysaa waa su'aal weeye adigase shaqadii laguu soo diray maxay ahayd shaqada laguu soo diray waxay ahayd haddaad diintan rumaysan tahay oo xanaaqa iyo xamaasku uu kaa dhab yahay dadkan hareerahaaga jooga wax u sheeg oo diintaada ugu yeedh oo akhlaaq iyo naxariis inaad hayso tusi markaasay dadku ku rumaynayaan oo warkaaga yeelayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka jiiraankiisa uu soo boqon jiray wuu u wada naxariisan jiray intaasoo dada waxay ku soo islaameen ruux soo booqday oo salaamay bay ku soo islaameen intaasoo dada waxay ku soo islaameen iyagoo baahan oo ruux muslim muntasiba ku soo islaameen laakiin marka maanta warkeena la dhageysto oo kumaanku masjid maanta warkeena laga dhageysto innagoo la ilaahayo waxaan muslim ahayn baabi'i adigana sidaas oo kale in lagu baabi'iyo maxaa diidaya saa daraadeed waxaa la rabaa dadka diinta inaan ugu yeedhno akhlaaq aan la nimaadno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigu markuu ilaahay amarka siiyey dacwadan ilaahay buu soo gaadhsiiyey markaasuu habeen iyo maalin wuxuu isku bixin jiray inuu dadka diinta gaadhsiiyo markaasuu innagana wuxuu amar inagu siiyey balliquu cannii walow aaya markaasuu nabigu wuxuu ka xumaan jiray ruux inuu naar galo iyo ruux in la ciqaabo oo adduunyadana lagu dhibo aakhirana lagu dhibo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka horjeeday maxaa yeele wixii loo soo diray iyo waxaan inagu maanta samaynayno ayaa kala laba ah ilaahay ducadaasna ma aqbalaayo mana yeelaayo waxaana u malaynayaa haddii maanta dhulka la iskula noolyahay sida Accra oo kale Qaahiro oo kale Istanbul oo kale Nairobi oo kale Addis Ababa oo kale haddii ilaahay dadka ku nool in ka mid ah hal mar uu halaago waxaan u malaynaa inta kalena biyo cabaan inaysan helaynin baabuuray fulaan ayna helaynin hadday helaan inay dhib kala kulmayaan waan hubaa maxaa jira guri walba guriga ku xiga laba ruux oo kala diina ayaa degan labadaa ruuxna way iskaalmaysaan dowladahaasna waa laga wada shaqeeyaa saa daraadeed waxaa la rabaa inaan fahamno diinteennu inaan u baahannahay inaan diinteenna ogaano diin adduunkoo dhan loo soo diray inay tahay caalamka dhanna in la gaadhsiiyo ruuxii rabana isagaa qaadan kii rabana isagaa diidi oo diinta ilaahay laa ikraaha fi ddiini baa la yidhi saa daraadeed habaarka masaajida ka socda meeshiisii ma dhicin islaamkuna ma qaba sidaas nabi maxamed manhajkiisiina maaha kii saxaabadana maaha kii taabiciintana maaha nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada markuu la hadlayay wuxuu yidhi lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam ilaahay inuu gacantaada ku soo hanuuniyo hal ruux ayaa geela quruxda sane carabtu jecleed iyo dadka geela dhaqda ay jecel yihiin sideenna oo kale ayaa kaaga khayr badan riwaayad kale xadiisku wuxuu sheegayaa
خير لك من الدنيا وما فيها الدنيا دا أو دن وحا كاغا خير بدن بوري هل روح إنو قعنت هذا يعرب كاغا كسا هنونو أيا كاغا خير بدن بوري وحا اسويدين لمركا أئمة نميان لبارين إن دادك أويانان هنونكا ويؤدو أيا إني سوا هنونان ودمان أي دادك لجعلادان إني جنة قلان إني النار قلان لإنو ما صودرين سادرات دي وحان كنا سيحين لها دادك علمي قاله إيه علماء واوين لما أنت وبرعان قاله oo dadka loo sheego maxay ku ducaynayaan iyo maxaysan ku ducaynaynin dukaamadeena yaryarka ah waa ku dadaalaa caruurteena cunto siino waan ku dadaalaa laakiin ilmahaasi masjidka markuu yimaado oo habaarka maqlo oo lacnada maqlo wuxuu nacayaa dadka saadaradeed waxa la rabaa aflaamta la isku cabsiyo inaan noqonin oo dadka maartay lagu cabsiyo habeenkii ruuxii daawad una seexanaynin waxaa la rabaa inaan noqono sida roobka da'ayo oo kale raxmatan lil caalamiin matarka raxmad baa la yiraahdaa muslimkana inuu roobka noqdo ayaa laga rabaa muslimka marka danta laga lahaa oo dhan waxay ahayd hidaayat albashar bay ahayd oo nabiga loo soo diray waxaa la rabaa hidaayadaas inaan qayb muhiim ah ka noqono oo dadka dhan in aan ugu yeerno inay inala soo islaamaan kii inala soo islaami waayana waa walaalkeeno nabi aadan iyo xaawa wada dhalay akhlaaq wanaagsan in lagu la dhaqmo oo loo naxariisto oo sida la isula dhaqmaayo dadka la baro iyo u baahan tahay run ahaan dadka iyaguba si isula dhaqmaan inaga ayaan aqoonin oo waa kaan iswada cayno oo waa kaan iswada dilo saadaradeed waxa weeye ilaahayow halaag dadka kale war nabina maaha war ilaahayna maaha warka nabiguna wuxuu ahaa balliqu anni walaw aaya hal aayadna haatee diinta iga gaarsiibu ahaa ka kalna wuxuu ahaa ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha alladina aamanu wa intii rumaysay kuwa kale yaa ayuha naasu soo islaamo oo diinta raaca la leeyahay laakiin lama dhihin ilaahayow halaago naarta ku ururi lama dhihin naca aan iska dayno oon baranno sida dadka aan ula dhaqanno iyo inagu sida aan isula dhaqanno aan baranno saadaradeed run ahaan markaad aragtay intaasoo baabuur oo maskaa joogta waan ku farxay laakiin ducada markaan dhageystay waxay ila noqotay meel aan islaamkii lagu hayninba ila noqotay salaadaas marka dhaawac baa gaadhi ramadaankaana dhaawac baa gaadhaya maxaa yeelay dadka la habaaraya waxaa ka mid ah dad aan dagaal kugula jirin kuwa aan ku nabcayn kuwa saaxiibada ah kuwa sharika isla tihiin kuwa macallimiintaada ah caruur yaryara kuwa aan hubba kuwa haysanin inaad habaarto xaq uma lihid kelimo kastoo saa ka soo baxdana inay dembi tahay waan hubaa haddaan laga tooba keeninna waxaan hubaa inay kula soconayso ruuxa caruurteenna iyo dadkeenna aan barno sida laysu jeclaado naca waxaa keenaya waxaad nacaysaa wixii mujrim ah oo dembiile ah wixii ku dilaya oo dantaada baabi'inaya baad nacaysaa kaasna waxaanu maanta intuu muslim is yeelay cid kale ma yeelin saadaradeed waxaan warkay ku soo ururin lahaa raxmadda ilaahay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo biiri dadka ilaahay oo dhan ay isla wada noolaayeen oo diimuhu ay isla wada noolaayeen oo sayidina umar markuu yimid kaniisadii ma ku tukanin markuu yimid bayt almaqdis oo wuxuu yidhi waxaan ka cabsan inay dhahaan umar baa ku tukaday idinka qaataan bannaankeeda ayuu ku tukado masjidkiisa masjid umar loo bixiyay laga dhisay sidaasaa diimaha loo ixtiraamay dagaalku intuu socdana kaniisa la dumiyena ma jirin mid dadka laga qaatayna ma jirin ruux geed gooyena ma jirin gabar aan dagaal ku jirin oo la dilayna ma jirin nin aan dagaal ku jirin oo la dilayna ma jirin saadaradeed kuwan aad la nooshahay ood isla shaqaysaan ood wada nooshihiin inaad habaarto way ka sii fogtahay waxaasoo dhan waxaan aad iyo aad run ahaan aan uga codsanayaa in la tababaro a'immadeenna oo loo sheego ducooyinka noocaasa in laga baabi'iyo oo lagu bedelo ducooyin kale oo tasaamux iyo wada noolaansho iyo dad jacayl iyo isjacayl ah jiiraankaaga markaad wax u tarto ood run ahaan waan xusuustaa dadka tujaarta ah oo soomaalida markay ku soo barteen run ahaan east africa kenya oo kale iyo meelaha kale